Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo nagu magac darnay Tusmo. Barnaamijka mawduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay 25 qof ee ugu taajirsan adduunka. Waxaa jira isbedel weyn oo ku yimid qiimaynta saxda ah ee bilyaneerada sanadkan. Tartankan waxaa loo soo bandhigay si toos ah kuwani waa 25 ugu sarreeya adduunka 2019. Li Ka-shing oo qofka 25aad. Li Ka-shing waa mid ka mid ah ganacsatada ugu saameynta badan qaaradda Aasiya, waana aasaasaha shirkadda Gcon. lacagtiisa ama hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 29.8 bilyan. 24. Le Shouke waa aasaasaha shirkadda Sun-Hong Kai oo ah shirkad horumarineed. Wuxuu ku soo koray nolol aad u liidata, qoyskiisuna danyar ayay ahaayeen, laakiin maanta wuxuu ku faraxsan yahay kaliya inuu leeyahay hanti gaadhaysa 30 bilyan. 23. Howie Cowan waa gudoomiyaha hadda ee shirkadda Hong Kong ee liiska guryaha iibisa China Evergrande Group. Shirkaddu waxay ku hawlan tahay hoyga deegaanka iyo ganacsiga sanadkan. Qiimihiisa ama hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 31.3 bilyan. Sheldon Adelson waa ganacsade Mareykan ah, maalgashade iyo deeq-bixiye. waxa kale uu yahay aasaasaha gudoomiyaha iyo agaasimaha shirkadda Las Vegas Sands Corporation. Sheldon ayaa dhawaan kor u kacay liiska 25 qof ee ugu taajirsan dunida, iyadoo ay qiimayntiisu gaadhay 34.9 bilyan. 22. Jack Ma waa aasaasaha Alibaba. Wuxuu u dhashay waddanka Japan. Wuxuu kaalinta 22aad kaga jira 25 qof ee ugu taajirsan adduunka. Maanta Jack Ma waxaa qiimaha hantidiisa lagu qiyaasay inuu noqday 36 bilyan, isagoo ku sii jeeda kaalinta 20aad ee liiskan. Ma Houghton waa ganacsade Shiineys ah, maalgashade, deeq-bixiye, injineer internetka iyo tiknoolajiyadda. Waxa kale uu aasaasay Tencent oo ah shirkadda ugu qiimaha badan Aasiya. Houghton waa mid ka mid ah kuwa ugu taajirsan Aasiyaanka oo ka dhigay liiska sanadkii 2019, iyadoo lagu qiyaasay inuu yahay 37.2 bilyan oo dollar. David Koch waa walaalka Charles Koch, waxaana uu shaqeeyaa madaxweyne ku-xigeenka Koch Industries. David iyo Charles labaduba waxay leeyihiin 42% saamiyada shirkadda. Koch waxa uu ka muuqday liiska dadka ugu qanisan adduunka ee 2019, waxaana lagu qiyaasay 42.1 bilyan. Charles Koch waa mulkiilaha iyo agaasimaha shirkadda Koch. Warshadda Koch waxay hadda ka mid yihiin habka iyo qaabka warshadaynta, qalabka karaynta macdanta, bacriminta, ganacsiga badeecadaha iyo adeegyada kalluunka. Koch ayaa galay kaalinta 19aad dadka ugu taajirsan ee leh qiimo cajiib ah oo ah 42 bilyan. Steve Ballmer waa milkiilaha haatan ee NBA ee Los Angeles Clippers. Sidoo kale waa agaasimihii hore ee Microsoft ilaa 2019. Steve Ballmer qiimaha hantidiisu ayaa lagu qiyaasay 49.1 bilyan. Rob Walton waa wiilkii ugu da'da yaraa ee Sam Walton. Wuxuu u shaqeeyay gudoomiyaha Walmart kadib geeridii aabihii ilaa 2015. intaa wixii ka dambeeyay wuxuu si kooban u dhaafay walaalkiis Jim. dhawaan liiska dadka ugu qanisan caalamka ayuu ku soo biiray. Si kastaba ahaatee wuxuu haatan u dhacay liiska 16aad, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 49.2 bilyan. Sergey Brin iyo Larry Page ayaa labada duuliye ayaa Google-ka ugu sareeyay, iyagoo gelinaya Sergey Brin meelo ka baxsan bogga liiska dadka ugu taajirsan dunida oo dhan. hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa 49.3 bilyan. Alice Walton waa gabadha Sam Walton. waxay aasaaseen shirkadda Lima 1988. maanta Alice Walton qiimaha hantideeda ayaa lagu qiyaasay 49.4 bilyan oo dollar, iyadoo 14 qof ee ugu taajirsan adduunka ah. Jim Walton waa wiilkii Sam Walton oo ahaa aasaasaha shirkadda ugu weyn dunida ee Walmart. waxa uu ku jiraa guddiga agaasimaha Walmart iyo agaasimaha shirkadda uu leeyahay. sanadkii 2019 qiimaha hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 50.3 bilyan. Larry Page waa aasaasaha Google oo la aasaasay sanadkii 1998. shaki la'aan waxay noqotay shirkadda raadinta ugu guulaha badan caalamka.
shirkaduna waxay sii waday inay iibsiyo kala duwan sida YouTube. Guusha Google uu sameeyay Larry Page wuxuu kaga mid noqday dadka ugu taajirsan adduunka, hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa 50.3 bilyan. Mukesh Ambani waa ganacsade iyo maalgashade oo Hindiyaan ah oo hadda ah gudoomiye agaasimaha guud iyo saamiga shirkadda Reliance Industries Limited oo loo soo gaabiyo RIL. Ambani wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan Aasiyaanka ilaa haatan, sanadkana waxa uu ka dhigay liiska dadka ugu qanisan caalamka kaalinta 11aad. qiimaha hantidiisuna waa 52.6 bilyan. Michael Bloomberg waa ganacsade iyo siyaasi Mareykan ah. Bloomberg waa asaasaha iyo madaxa fulinta ee L.P. xogta dhaqaalaha iyo warbaahinta. Bloomberg hadda waa 47 sano jir, mid ka mid ah dadka ugu taajirsan adduunka. Michael ayaa ku daray $5 bilyan qiimaha hantidiisa 6 bilood ee la soo dhaafay, taasoo keentay inuu dib u helo booskiisii hore ee 10aad ee liiskan. qiimihiisa hadda waxaa lagu qiyaasay 3.9 bilyan. Francois Bettencourt Meyers waa bilyaneer Faransiis ah iyo qoraalada kitaabka quduuska ah oo ka shaqeeya xiriirka Yuhuudda iyo Masiixiyiinta. qoyskeedu waxay leedahay shirkadda L'Oreal kadib markii ay hooyadeed Lilian dhimatay. waxay dhaxashay hantideedana hadda waxaa lagu qiyaasaa 4.9 bilyan. Carlos Slim waa ganacsade reer Mexico ah iyo maalgashade. mulkiilaha shirkadda Grupo Carso. Carlos waxa uu liiska kaga jira kaalinta 8aad dadka ugu taajirsan adduunka iyadoo hantidiisa lagu qiyaasay 60.1 bilyan. Amancio Ortega waa ganacsade Spanish ah oo asaasay kooxda Integradas Fashion. Ortega ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay liiska dadka ugu qanisan adduunka kadib markii ciyaartoy kale oo liiska ku jira ay hoos u dhaceen. hantidiisana waxaa hadda lagu qiyaasay 64 bilyan. Larry Ellison waa asaasaha shirkadda Oracle, wuxuuna sidoo kale ahaa agaasimaha shirkadda ilaa Sebtembar 2014 sanadihii la soo dhaafay. Oracle waxay noqotay shirkad tiknoolaji oo ah cajiib, waxaanay shaqaalaysiisay in ka badan 136,000 oo qof. Larry Ellison ayaa ku jira liiska dadka ugu taajirsan adduunka oo dhan, iyadoo hantidiisa lagu qiyaasay 64.9 bilyan. Mark Zuckerberg. dhammaanteen waan ognahay in Mark Zuckerberg uu yahay asaasaha Facebook. Facebook wuxuu noqday shirkadda ugu caansan ee ugu qiimaha badan bulshada caalamka. Mark Zuckerberg ayaa dhawaan laga soo saaray booska 3aad kadib markii uu lumiyay lacag badan oo uu ku helayay fadeexad xogta Cambridge iyo waxyaabo kale oo kala duwan oo sababay sicirka saamiyada Facebook. waa ninka ku jira kaalinta 5aad ee ugu taajirsan caalamka iyadoo qiimihiisu gaarayo 67.4 bilyan. Warren Buffett waa ganacsade Mareykan ah iyo maalgashade. agaasimaha shirkadda Berkshire. Buffett waa maalgashadaha ugu guulaha badan caalamka. malaayiin ganacsade kala duwan ayaa u fiirsaday isaga sababtoo ah guusha Warren Buffett ninka afraad ee ugu taajirsan caalamka iyadoo leh qiimaha ugu sarreeya ee 84.8 bilyan. si kastaba ahaatee, inkastoo ay xaqiiqadu tahay Buffett weli wuxuu ku nool yahay guriga uu soo iibsaday markii uusan xitaa ogeyn waxa bilaabay inuu bilyaneer noqdo. Bernard Arnault waa agaasimaha LVMH. ugu dambeyntiina shirkadda waxaa loo sameeyay inay ka mid noqoto labada shirkadood. Louis Vuitton waa noocan ah oo aad u fiican. Moet Hennessy waa shirkad shamiista iyo shirkadaha koonka. Bernard waxa uu sameeyay liiska dhaqdhaqaaqyada sanadkii hore. xilligii bilowgii 2017 wuxuu ahaa 14 qof ee ugu taajirsan adduunka. hantidiisa imka waxaa lagu qiyaasayaa 93.9 bilyan. Bill Gates wuxuu ahaa ninka ugu qanisan adduunka muddo dhowr sano ah. Gates wuxuu aasaasay Microsoft sanadkii 1975 isagoo la socday Paul Allen tan iyo markii uu noqday shirkadda ugu weyn ee software-ka adduunka oo dhan. sanadkii hore Bill Gates wuxuu helay 10 bilyan oo cajiib ah oo qiimo dheeri ah. tani waxay ku dhajisay qiimaha lagu qiyaasay 2.1 bilyan. si kastaba ahaatee, waxaa dhawaan laga soo dejiyay xidigta liiskan, waxaanu sida ugu soo dhacay kaalinta labaad ee dadka ugu qanisan adduunka. hantidiisana imka waxaa lagu qiyaasaa 102.1 bilyan. Jeff Bezos oo ah ninka kaalinta koowaad ku jira waa asaasaha Amazon, mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan webka. Amazon wuxuu ka bilowday buug gacmeedka internetka ee Jeff ee qolka Jeff-ka iyo iibinta bilowga waxay ahayd mid gaabisa. sanadkii 2019 Jeff Bezos
wuxuu noqday ninka ugu qanisan caalamka kadib markii uu ku daray 40 bilyan oo uu ku hantay shabakadiisa sanadkii hore. Amazon ayaa sameynaysa dhaqdhaqaaqyo waaweyn kadib markii dhawaan la iibsaday Whole Foods. daawadayaal intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka Tusmo. وبعد هو هاد كيبل ويدين كتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.